إن دور يتوانكي سنة قدام بيه وحلواتن سنة كله إيه سؤال شاسي تاجنيد سؤالها اللي جوابها اللي كرنا ويأت كاين أما وضعي توسك هي اللي وجرى هالنقطة أما فكرك وضعي كو أدنى دتك كلا قبان هالنقطة مركز سؤال شاس ويأذكتها أرور سنكيدو وين أذكتها إن لو فرح وحكشي جيد لكن وكسور دوانا يا وحي إلهي جرسي سبحانه وتعالى إن أرنت اللبات مركان وضعي كهلا الصومالي waxaan jeclahay inaanan hoos u daagdagin oo dhibaatooyinka khaaska ah ee humanitarianka ama dadka mushkilooyinka burburka iyo dadkii iyo barakacii iyo isku xadgudubkii iyo arrimaha la xiriiray inaanan aad u aadin waayo waa sheeko dheer oo maxaan ku dhahay aad wada garan karno in wada garan kara dhamaanteen waxa kaloonan aad u aadaynin khalad iyo sax تنا وخلط تنا وصح حكمك وحلا يراضو وضعي قليه ساسا صحة ساسا خلطنا يدنا أما مجالك كم في الله أما عليسك سؤال شو إلى هي هل كان لقوم صوب بندي كرام وحن رواينا أنت بتوحوي سيانو أجانا وضعي يقابك أن كشرنو إن وحن روا سجود قرن وامحي محوك كومي maxaan sakahaynaa markaas waxaan garan karnaa wadcigu nooca uu yahay iyo sidoo yahay sidaas aanan tafaasiil u aadi doonin عناصرته ugu waaweyn ee qaran iyo bulsho iyo ummad iyo dawlad iyo xukuumad u baahan tahay inay jirto ee ugu muhiimsan inta badan waxa lagu sheegaa dhowr arrimood koow dhul labo shacab iyo dad degan dhulkaas isaga ah midda kale siyaada iyo istiqlaal iyo madax banaani midda kale nidaam iyo barnaamij la raaco marka intaas uu dadku haystaan waa xukuuma waa qaran marka wadcigeenu masaa'isha isaga ah culculus muxuu ka buuxinayaa waxa kale aan isku raacsanahay naan karno waa inaan dad iyo shacab nahay way yani dad shacab leh hadda markaad fiiriso caalamka beesha caalamka waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxay u taqaano dawladda way jiraan laakiin wali category-ga state list-ku kama bixin wali waxa la dhahaa dawlad central TC aad barra u dambeysay sax la yiraahdaa markii category ahaan la sheegay laakiin waan haynaa shacab ama uu jira ama banaanka ha jooga ama dhulkii ha joogo cunsurka waa mutawafir cunsurka isaga oo shacbiga waa mutawafir waxa kaloo jirta dhul neesna waa jira oo xuduud iyo maxaan ku dhahay dhul waanu lahayn oo Soomaaliya markii la dhaho shacabna wuu ku dhici dhul iyo juqraafina wuu ku dhici waxa kaloo jira wax la yiraahdo siyaadada marka laga hadlayo yaani qofka madax banaanidiisa marka laga hadlayo laba arrimood baa culus waxa culus istiqlaalka ee qaraariga ah يعني intee in leeg bay dawladdaasi qaraarkeeda u madax banaan tahay istiqlaal alqaraari wax saas oo kala waa laga hadli karaa waa mas'ala la xiriirda siyaadada waxa kaloo siyaadada la xiriirda حرية الأراضي السيادة على الأرض intee in leeg bay dadku dhulkoodii oo dhan haystaan oo ay ka xukumaan macnaha ayadana waa siyaada marka mas'aladan shacab waan haynay juqraafina waan haynay لكن أوضاع الصومالية سيادة ومنقوص يعني ما دمايسترنا وعن كذا فرقلين أنت يدون تبع هلا إكاتة ويشرتا دولكي أو دمان محن كل هاي مديسن أو قعنتك وذا شرنا ما شروا لكن أنت سبضان ووشرا إن أرنت كله أو حق الشعب كوينه هينا لكن نظام الشعب ككوبا حاكم محكوم وعنصر أساسي نظام شعب ككومن حاكم محكوم شعب كيوشرا لكن سيادة نظام كأوضاع وها إنه أقيب سماده
mid wax xukuma iyo mid la xukuma macnaa inuu nidaam iyo barnaamij jiro masaladaasna waa manquus wax way jiraan laakiin ma dhamaystirna wax way jiraan laakiin ma dhamaystirna marka waxaan leeyahay asiyada oo xagga qaraarka ah oo farigelan la'aanta ah ma dhamaystirna dhulkiina maxaan ku dhahay isku xirnaantiisii iyo madaxbanaanidiisina ma dhamaystirna nidaamkii hagi lahaa xaakim iyo maxkuumna ma dhamaystirna intaa markaad garato oo canaasirta maxaan ku dhahay qarannimo aad garato waad dareemi kartaa wadcigeenu intuu leeyahay wax kasta waxbaa ka abuuran oo wixii inoo abuuran wuu fiican yahay oo ama dawlad ha noqoto ama kooxo ha noqoto ama arad dhulkii ha noqdo wixii inoo abuuran uu fiican yahay ma wax fiican lagama daba tago waa un lumba barakeeya laakiin miqyaaska dawladnimo ee qarannimo markaynu tafaasiisha ka fogaano intiisa badan wax ma dhamaystirna intiisa badan maxay ma dhamaystirna xaakim iyo maxkuum shacabkii ma aho wali lama xasminin arrinta iyada oo waad wada garanaysaa qaraarka iyo nidaamka iyo madaxbanaanideeduna ma dhamaystirna nidaamkii aan raaci lahayn oo inagu aan dhahno shariica islaamiya مثلا nidaamkii ay ahayd inaan raacno haddaan dad muslimiina nahay juhdigii iyo raadintiisii iyo ka hadalkiisii wuu jiraa laakiin hergelintiisii iyo ku dhaqankiisii wali ma dhamaystirna waa la oran karaa wali maraaxishi baa lagu jiraa oo way kala horeysaa oo hadba geedaha say u kala sareeyaan baa loo kala qaadaya waa la oran karaa laakiin wadciga maanta ma dhamaystirna iyada arinta iyada ahna marka culimada kale baa meelaha banbanaan buuxin doonta sidee loo dhamaystiri sidee loo wanaajin maxaan ku dhahay la gelin karaa laakiin guud ahaan afarta qodob oo dawladnimo ay tahay inay mutawafir noqoto midba way dakhran tahay sidaas darteed baan wali qurba joognahay sidaas darteed baa wali dadkii biyaha ku dhimanayaan sidaas darteed baa wali chapterkii siyaasiga ee khilaafaadka uusan xasmisnayn oon laga go'aan gaarin oo wali maftuuxiye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inay arrimahaas oo dhan aan sheegnay horta inaynu ku baraarugsanaano dawladnimadu inay tahay arrimaha muhiimka ee ka sareeya rabitaanka shakhsi ama koox ama qof ama midab ama khitaab siyaasiya ka sareeya inuu yahay inaan ogaano markaan shacabnahay yani alwatan والشعب الحاكم والمحكوم والسيادة والنظام شريعة إسلامية أين هذا؟ أفرت مركو قفك تابان كرو الحمد لله أفرت مركو قفك تابان كرو وقف هيله وطن له دول له شعب له نظام له دولة له أنت أوسن وذا تابان كرنا حكمة سيدون تاهات لكن وأسعينا يا مركا أرنتاس كوبان ayaan ku soo koobaya maxaan ku dhahay kalimadii canaasirta ugu muhiimsan ee arrimahaas lagu dhamaystiri karana inkastoo culimadu ka hadli doonto waa inaynu isu kaalmaysano inagoon isriixin inagoon maxaan ku dhahay ixtiraamkii iyo baahida aan isu qabnay walaaltinimada dhuminin inaan wax leeyahay tacaawun sameeyno iyo midnimo isu sacayno waxaan rajaynayaa faqradaas waxa buuxin doona ee culimada iga dambaysa marka wadciga Soomaaliga maanta anigu qaybtiisa dawladnimo ee qarannimo inaas ayaan ka sheegi lahaa waana mahadsantihiin hada wallahu a'lam sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in